الدين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. ولا سوماليد ملك جوجتان بإله سبحانه وتعالى هدكوا ما يلو عدي دي بندبك الله كقاضو عدي دن الله وفي انت بهن الله ديقو انت بوقت الله بوكسيو انت دمت الله ونحرستو والدينتنا الله ونحرستان نغر الله نوغا دبا نحرستو dalka diinta dadka iyo dawladnimadaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala inoo badbaadiyo laba qodob baan maanta ka hadlayaa. qodobka koowaad duqeyntii ka dhacday buuraha Puntland kelmadan ka oranaya. qodobka labaad xamlad ay wado maamul goboleedka Puntland oo ay oo ka dhan ah dadka ajaanibta ah ee ku nool gobolka sida sharci daradana ku jooga kelmadan iyadana ka oranaya. qodobka koowaad waxa dhacay qarax aad u xoog badan meel fogfogna laga maqlayay. qaraxaas waxaa geystay ciidamada iyo diyaaradaha Mareykanka. waxaa la sheegayaa oo xogo aad u dhow oo ku dhow argagixisada meesha ku jirta cadawga kuwa ummadda Soomaaliyeed ay sheegayaan dhowr iyo 10 qof oo ajaanib ah ugu yaraan inay ku dhinteen oo waliba dad aad iyo aad madax ah ay ahaayeen. waxaa la sheegay dadka halkaas muddo in lagu hayay surveillance. ciidamaduna waa meesha ay ku wajahan yihiin waxaana u dhaxaysa masaafo ka yar ilaa 50 kilometer. waana meesha la isleeyahay ama waa la isku fara saarayaa ama nimanku waa isku dhiibayaan. waxaa la sheegayaa ninkii odayga u ahaa Soomaalida meesha joogta in halkaas ay dhici karto inuu ku jiray qaraxa dadka ku dhintay oo ku geeriyooday. ninka magaciisa waa ma hayo laakiin waa ninkii lagu bedelay Muumin oo isagu u dalacay ilaa regional Africa argagixisada Africa iyo meelo fogfog u dalacay kadib markuu dalkiisa soo galiyay ajaanib tiro badan oo la aaminay kadib markii dahab badan iyo luul badan iyo macdan badan iyo hanti badan ummadda Soomaaliyeed leedahay la gurtay oo si sharci darro iyo xaq darro ah ay ku qaadatay cadawga ummadda Soomaaliyeed argagixisada ay kaga goratay buurahaas oo la aaminay. ninkii marka lagu bedelay ayaa la sheegayaa inuu qaraxyadaas ay dhici karto inuu isaguna ku dhintay ama ku waxyeeloobay. dad aad u badan oo kale oo Soomaaliya ayaa iyaguna halka ku waxyeeloobay oo ah daacishtii meesha ku jirtay. kulligood waxaan leenahay calaykum min allahi ma tastaxiquun. ilaahay wixii aad ka mudantihiin kala kulma. musiibatihiin dib iyo dhaawac dadka ummadda Soomaaliyeed boog ku taalaatihiin. waxa alla wixii idin dilaya cadawga ugu fog adduunka Israa'iil haday idin leynayso waa la taageeraya. sababtaasna waxa keenay waxa aad tihiin ba ah cadow aan cid ka arxan darin aysan jirin. marka ilaahay subxaanahu wa ta'aala ba ku mahadsan inaad baaba'daan oo aad ka zuushaan baanu ilaahayna ka rajaynaa subxaanahu wa ta'aala gabi ahaanba geyiga ummadda Soomaaliyeed. waxaan runtii dhaliilayaa qaabka dawladda Soomaaliya iyo dawladda Puntland ay uga falceliyeen qoraalada iyo waxyaabaha ay soo qoreen runtii sharaf male. waxaa la ammaanayaa la bogaadinayaa Donald Trump laakiin iyagii shaqada wax ka qabtay isma bogaadin karaan. nasiib darro wey. waa raggii teendhada isku kooxda ku ahaa waa raggii isu dabaaldegay. waxaan xasuustaa kelmad Siciidani uu ka yiri teendhada oo ahayd alxamdulillah waanu wada guuleysanay. ninkii lagu wada guuleystay xasan buu ahaa. xasankii iyo danigii wada guuleystay maxay u kala guuleysteen haddana? maxaa Donald Trump uu idinka kaalmeeyey? nacam waa xaq waa sharaf in la yiraahdo thank you waadna caawisay. laakiin waxaa ka muhiimsan in la bogaadiyo ciidamada xaquudirka ee wajahaya cadawgaas caalamiga oo adduunka oo dhan ka soo duulay oo qabiil walba iyo wadan walba ka socda ee ku soo duulay ummadda Soomaaliyeed ee buuraha iyaga gardarada ku jooga oo hantida iyaga gardarada ku qaadanaya oo diintii iyo dadnimadii waa naga fogeeyay oo ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka ku diray oo nacsiinaya diinta islaamka. nimanka musiibada oo mujrimiinta ah in la iska kaalmaysto cadow iyo muslim ba la isu kaalmaysto waa sax waa mas'ala sax. laakiin maxaa la isugu qoori waayay inay isu mahad celiyaan inaysa ka wada shaqeeyaan. xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay jaaniskan maybe Trump inuu ka duwan yahay Joe
maybe inuu diyaar u yahay inuu qayb ka qaato duqeynta kuwa koonfurta jooga ee jilib jooga ee jamaam ee jooga magaranaysa badhaadhe ee jooga gobolka bu-aalo oo dhan oo banaanka aan buuraha ahayn oo sida babliga ayagoo tababaranayo ciidamo tababaraya loo jeedo ka loo adeegsado diyaaradahaas ha duqeeyeen kuwa ha la baabi'iyo magaalo keliya ay joogi karaan ha waayeen duurka ha isugu soo baxeen kadibna ciidamada iyo iyagu duurka la iska helo iyagoo duurka wareegaya ha la is helo maxaa diidaya in la isu kaalmaysto maxaa diidaya in darooma loo soo qaato maxaa diidaya maadaama hubkii cunaqabataynta laga qaaday ummadda in darooma dawladdu ay soo gadato iyaga ay meeshooda ku duqayso maxay uga sugaysaa un aerial support from somewhere else qof kale maxay uga sugaysaa inay hawada ka caawiyaan oo ciidamada dusha ka taageeraan yacni saas oo kale waxaan kaloo runtii ku baaqayaa mar kale in layska kaalmaysto cadowgaas maxaa yeele waa cadow soomaaliyeed mar haddii cadow guud oo dadkoo dhan cadow kuhii u yimaado waa in loo midoobaa waa in waxa laysku hayo oo siyaasad ah dhinac layska dhigaa waa in masiirka ummadda loo midoobaa labada oday waxaan leeyahay shalay waad ku midoobi karteen dawladdii jirtay inaad lugaha bixisaan oo ridaan maantana ku midooba cadowgaas aan idin bixinayn idinka midkiina aan bixinayn inaa u midoodaan intaa kartidaa yeesha kelmadda intaasa ka oranaya kelmadda labaad dawladda soomaaliyeed iyo maamul goboleedyada dhammaantood waxaan kula dardaarmayaa inay kaga daydaan puntland xamladda ay ku qaaday ajnabiga lagagana sifaynayo gebi ahaanba gobolka lagaga sifaynayo dadkii ajnabiga ahaa ee lugta kusoo galay oo aan intooda badan ay dhici karto inay gacanta u galeen una shaqeeyaan argagixisada buuraha ku jirta in badan oo ka midina ay gudaha uga shaqeynayeen waxaana loo sheegay la caddeeyey in la hayo telefoonno badan telefoonnadaas oo ay wateen dad tuugsanaya laakiin lacagta ay tuugsanayaan percentage ay dhici karta argagixisadu inay ku lahayd ama ayba wada lahayd dadkaana cunto iyo nolol iyo wax noocaasa la siinayay ama ayba u shaqeynayeen iyaga waxaa bilaabatay xamlad lagu sifaynayo dad badan oo iyaga ahi iyagaa baabuurtooda raacay qaarna dawladda iyo shacabka ka bixiyey nooliga ilaa jigjigaa lagu daabulay oo waxa lagu celiyay meerihi ay ka yimaadeen arrinta aad baan u bogaadinaya waxaa la oran karaa waa qorax soo baxday soomaaliya khatar bay waxay ugu jirtay inay la wareegaan etoobiyaan lugeynaya oo kasoo lugeynaya 1,000 kilomitr ka badan war wiilka lugeynaya oo intuu borderka kasoo galo puntland ilaa boosaaso soconaya 900 kilomitr soconaya askari mudarab ah wey waa carbisan yahay nin diyaara wey ma aha shacab yaan lagu khaldamin intaasoo dhan intay maraan in layska daawanayo baabuurta waxaa lagu soo rogay inaan la qaadin hadda boolisiga ay dawladdu soo rogtay waa boolisi wanaagsan ha laga faa'iidaysto waxaa la ii sheegay dadka qaarkii inay iyagoo u xilanaya shilimaad yar oo ay shaqada kaga jaban yihiin dadka soomaalida ah inay qarinayaan qofkaasi waa dembiile waxa uu galayna waa dembi qaran wey qofka qarinaya nin ajnabi oo dalka sharci darro ku jooga caalamka waddan sharci darro lagu joogaa ma jiro visa lagu joogaa qofka ku shaqeynaya inuu haystaa employment work ama employment authority warqad work permit ah waa inuu haystaa shaqo ogolaansho waa inuu dawladda ka haystaa haddii kale shaqo ma siin kartid waa dembi aad ka gashay dalkaaga waa dembi aad ka gashay wiilka iyo gabadha soomaaliyeed ee dayacan ee qaxootiga ku ah waddankooda gudihiisa ee shaqada u baahan shaqadii aad iyaga siin lahayd inaad xoogaa shilimaada oo ay ka jaban yihiin kuwa ugala xilato waa gaf aad ka gashay naftaada iyo dalkaaga marka arrintaa aad ha looga fiirsado dadka ha la guro ha laga sifeeyo maamul goboleedyada kalena iyo dawladda dhexe gaar ahaan magaalada muqdisho waa in ay arrintaasi tusaale idiin noqotaa dadkaanu ma aha dad qaxooti u yimi dalka qaxootina ku ah qaxooti caalamka waa laga noqdaa meel walbaa laga noqdaa soomaalidu waa qaxooti laakiin dad isagu qaxooti oo aan deganayn oo aan nabad ahayn oo meel walba argagixisa iyo balaayo ay xabad ka ridayso dadka usoo qaxayo soo aadaya ujeedo kale leeyihin waliba dhalinyarada wada ah ragga ah dumarna waa ku jiraan marka yani arrinta aad ha looga fiirsado ujeedooyin kalea laga leeyahay dalka duulaan itijaahaad badan oo mucaakis ah iska soo horjeeda ka kala socda ayaa duulaan ku ah
wadamadaas caalamka joogo oo dhan jaanta yar ee dhulka ah ee qaaliga ah ee macnaha badan ee barwaaqada ah kulligood u hanqaltaagayaan qaar ninka ugu liitaa wuxuu leeyahay yaysan degin oo aysan nabad iyo amni noqon siyaasad xumada siyaasiga Soomaaliyeed baana arrintaas ku dhacday in la iska joogo xalana waxa jooga dad aan fiisa ku joogin oo aan bermad ku joogin oo aan sharci ku joogin oo goray soo galeen la aqoon oo goray baxayaan la aqoon arrintaas waa dulmi way waa gardaro in loo dhaco la baaro oo ninkii sharci darro ku jooga xabsiga la dhigo way adaanka waa in xabsiga lagu gura maaha madowga kaliya in la guro cid kasta oo dalka ku joogta sharci darro waa in la qabtaa qofkii sharci ku jooga ya falillahi alhamdu wal minna cidina dacwo ma qabto wadanka waa la iman karaa sharci baan lagu iman karaa laakiin sharci darro cidi ku joogta in la sifeeyo dalka laga sifeeyo muddan ka hadlaynay ilaahay hadduu soo fududeeyay arrinta Puntland waa ku bogaadinaya ciidamada iyo dawladda iyo shacabkuba inay iska kaashadaan baan ugu baaqiyaa sifaynta dadka dhalinyarada waxaa leeyahay shaqooyinka qabta nin gaajaysani god maaha inaad gacanta hoorsato adoo shaqada ka faanaya baalashle iyo timajare iyo baabuur dhaqe iyo dhulxaaqe waa shaqo qof raga oo raba inuu يعني نرشيس ماريو إبنا وصن كتير سنة عن ربي أهين سبحانه وتعالى شقوا قبصدوي أوقاته هكفاني شقية قبصو وهكفان تاينات كعنت أورس تقف أو تشحات كنا وراته أما أنت دلك هاي كوجا جوتو التهريب عرفته أو أدمير دران يومير على جران كل مت تاسع عب يجني ما وهجني ما يشرف دراعة إن أتباهنت هاي وهجبني ما إن أتشقيسته شغل كستو حلالة أو شرف شغل كستو حلالة وجبنيمو wax kasta oo ku kaafiya baahida kaafiya waa gobanimo marka dhalinyaro shaqooyinka laga faanin qabsada shaqooyinkeena shacabkana waxaan leeyahay haday Soomaalidu xoogaa yaro shilimaada ay dheer yihiin hal loogu daro wadaniga hal la dhiiri geliyo hal soo kiciyo dhalinyarada hal siiyo shaqooyinka hal dhiiri waxa arkaysaa guri saddex wiil ay ka qaxeen oo ay ka tahriibeen iyadoo saddex afar qof oo kale ay shaqaale ka yihiin oo ajnabi ah arrintaas sax maaha waa in arrinta wax laga bedelaa dhaqan xun weeye oo aan la garanayn ninka gobta ah waa ninka shaqaysta ninka gunta ahna waa ninka tuugsada intaasaan oranayaa